Ku soo dhawow janaalka Mustafdoobiyo fadlan saar calaamadda like-ta adigoona sidoo kalena dowladda Soomaaliya oo ka hadashay duqeyn ka dhacda gobolka Jubbada Dhexe islamarkaasina ay iska kaashadeen ciidanka Mareykanka iyo kuwa Soomaalida oo sheegeen inay ku dileen xubno ka tirsan sare oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. duqeyntaasi qaabkay u dhacday iyo dowladda Soomaaliya khasaaraha halkaasi ay ka geysadeen maleeshiyada loo geystay waa ku daawan doontaan janaalka Mustafdoobiyo gaar ahaan barnaamijkiisa badhaamiye. sidoo kalena waxaa qayb ka noqon doona howlgal ay fulisay ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kumaandoosta deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose islamarkaasina howlgalkaasi la sheegay in lagu soo qabtay dad ka tirsanay Al-Shabaab iyo sidoo kalena baaritaanadaasi lagu soo qabtay arrintaasi warbixin la xiriirto howlgalkaasi bartilmaameedka halkuu ka dhacay iyo macluumaadka ugu dambeeyay ujeedka uu yahay qodobadaasi oo ku daawan doontaan u diyaar garooba. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay fuliyeen ciidanka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Mareykanka ee Africom duqeyn laga geystay magaalada Seeko ee dhacdo gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya. duqeyntan ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay laba ka mid ah madaxda sare ee maleeshiyada halkaasi sidoo midka kalena dhaawac laga ku soo gaaray lagu sheegay warbixintii soo saartay dowladda Soomaaliya. waxaana la sheegay in xare ay ku sugnaayeen ciidamo fara badan oo maleeshiyada Al-Shabaab halkaasi lagu laayay sida warqoraalkaasi ka soo baxay ee dowladda Soomaaliya lagu sheegay. howlgalkan ayaa waxaa sidoo kalena qayb ka ahaa dowladda Soomaaliya ee duqeyntaasi ciidamadeeda gaarka ah ee kumaandoosta waxaana la jiray in ay deegaanada ay halkaasi ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan goobta ka agdhawaa ee duqeyntu ka dhacday dadkii shacabka ahaa aysan waxna gaarin ayaa lagu sheegay. diyaaradaha Mareykanka sanadkan 2020 gudihiisa waxaa deegaano fara badan oo ka tirsan Jubbada Dhexe iyo deegaano kale ee duqeymo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ka fuliyeen ayadoona dad shacab ah halkaasi sidoo kalena dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaartay. Mareykanka dhowr jeer ayay waxay ka fuliyeen Soomaaliya duqeymo ay sheegeen inay ku dileen Al-Shabaab sidoo kalena dad shacab ah waxyeelay ka soo gaartay. dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe waxay qayb ka noqonaysaa ciidamadeeda kuwa ka qayb qaadanaya duqeymaha sida waqooyiga ka soo baxay dowladda iyo kuwa Mareykanka Africom Soomaaliya ku soo lagu sheegayo. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandoosta ayaa waxay howlgal ka fuliyeen deegaano hoos tago gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka ayaa waxaa si gaar ah deegaanadaasi laga fuliyo kamid ahaa Beledul Amiin oo ka tirsan Dooratooro iyo sidoo kale Buulo Bashiir iyo deegaano kale hoos taga degmada Owdheegle. waxaana howlgalkaasi la sheegay inay bartilmaameed u ahaa maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa lagu sheegay in deegaanadaasi howlgalka laga fuliyay oo lagu sugnaayo xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaasina qaar ka mid ah Al-Shabaabkaasina gacanta lagu soo dhigay. war-saxaafadeedka ka soo baxay gobolkaasi Shabeellaha maamulka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa loo sheegay in lagu qabtay hub ay wateen rag ka tirsanay maleeshiyada Al-Shabaab waxaana howlgalkaasi si toos ah u fuliyay ciidamada kumaandoosta gaar ahaan kuwa dhanam. howlgalka intuu socday ayaa waxaa la sheegay in deegaanadaasi ee lagu qabtay maleeshiyadaasi Al-Shabaab ayaa la sheegay inay wateen qaar kalena ay ahaayeen kuwa hub watay oo badan islamarkaasina baaritaano laga sameeyay halkaasi lagu soo qabtay. waxaana jira shakhsiyaad kale dad shacab ah oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir dowlad leeyihiin Al-Shabaab lahaayo islamarkaasina baaritaano ku socdo. howlgalkan ayaa wuxuu imaanayaa maalmo ka hor halkaasi deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose weerar qorsheysan ay ku soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaasina oo ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya. gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ku soo noqonaya howlgallada ka fulinaya dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab ayadoona deegaano fara badan ee dowladda Soomaaliya ka taliso inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab deegaano ay ku sugan yihiin ee marar qaar ay dhacdo inay tuulooyinkaasi iyo bartilmaameed fariisamada ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku soo weeraraan.